waxaan rabnaa markan saxafiga ugu wanaagsan ama wariyaha ugu wanaagsan inkastoo anigu aan islahaa lagama horeeya waxaana la ii sheegay in dad iga horeeya oo iga wanaagsan inay jiraan. soo dhawow waan leenahay wasiirka warqadda noo fur wariyahaas u yeeraca arke waa siiye wariyahaas aniga markaan soo qishay magaca waa aad buu nooga firfircoonaya. soo dhawow wasiir. aad u mahadsantahay Dolian. waxaan halkan ugu yeerayaa wariyaha ugu wanaagsan ee sanadkan tagaya sii dhamaanaya 2019 ee Soomaali u karatay gaar ahaan dhalinyarada reer Muqdisho. wariyahaasi waa saaxiibkay waa walaalkay Cali Aadan Muumin. Cali Aadan Muumin soo dhawow. Cali Aadan Muumin saaxiib soo dhawow. Dolian iyo Muqdisho awal waxaan uga mahadcelinaa inaan ka dheerahay inay igu soo aadiyeen. aad u mahadsantahay wasiir adigoo fasaxayna cali laakiin waa isku haraynaa. cali soo dhawow. marka hore waa ku hambalyaynaa in aad noqotay wariyaha sanadka 2019. halo muqdisho waana ku guulaysay. maxaad ku guulaysay leedahay? waxaa magaalada muqdisho joogta 3,000 oo wariye maxaa lagaaga soo xulay? waa mahadsantihiin horta markooda waxaan mahadcelinaa Allah subxaanahu wa tacaala. marka kale waxaan rabaa inaan si qaas ah u salaamo dadka gagaaban sida anigoo kale. dabadeed waxaan rabaa intaanan sheegin sababta maaragtay weydiisay inaan adiga kugu soo celiyo su'aal oo ah 3,000 oo wariye xagee keen tiradaas? kala soo qaad waa 100 wariye joog. waa mahadsantahay. wariyaasha kama fiicni laakiin waxaan aaminsanahay nasiibka ii hiliyey kumanaan iga aqoon badan iga soo horreeyey igana dambeyn doonaa jira. waxaan u mahad celinayaa dadka codkooda i siiyey ee ii gartay inaan ahay qofka mudan in sanadkan la siiya abaalmarin. wadhaado ma ismoogid maxaad waad ku mutaysatay oo waad samaysay barnaamij war tabin yacni maxaad ku mutaysatay? waxaan ku mutaystay sidaan anigu aaminsanahay in dadka ii codeeyey oo aan aaminsanahay inay yihiin dadka shacabka ee Soomaaliyeed qaar madaxda i jecel inay jiraan oo u malaynayaa laakiin shacabka Soomaaliyeed ayaan u shaqeeyaa anigu. madaxda maxaa ka wadaa? tusaale way i xireen marka jacayl uma jeedo. wariyaha marka la xiro ama wariyaha la ciqaabo hadda waxay tira wariyaha Aljazeera ka xiran oo Qaahira ku xiran maalin walba Aljazeera waxay update ka dhigtaa maalinta ku korantay 1,020 maalmood oo xiran yahay. يعني waxaa wariyaas waliba waxaa loo sii qorsheeyaa awaad yaala dooxa ama qadar yaala maalinta xabsiga ka soo baxay in la guddoonsiin doono maalin kasta oo xarigiisana waxaa u socota lacag $1,500 ayaa u socota. marka xarigu dhib ma laha sida kaleeto maxaa is leedahay bulshada waa kusoo kordhisay? bulshada waxaa kusoo kordhiyey anisaan aaminsanahay in aan dhalinyarada Soomaaliyeed ee aniga ila midka ah aan baray inay hadli karaan oo ay xaq u leeyihiin inay hadlaan. sababta wax kale ma ahan aniga markaa hawshan bilaabayay media ma isan fogeyn sidaa daraadeed waxaan la kulmay bulsho madaxeedu hoos jiro sidaa daraadeed waxaan aaminsanahay qofku intuu nool yahay inuu xaq u leeyahay inuu hadlo waxa oo lala kulmo waxaa kamid ah nolol iyo geeri midda dooranaysa way badan tahay tirada aan naftayda qadimay ee aan maaragtay u qadimay si aan dadka iyo codeeyay kuwa lamida iyo iyagaba aan ugu sheego wax ay mudnaayeen in loo sheego. goorma kusoo biirtay saxaafadda? sanad. waa tahay ay lagugu xantaa jira gabagabadii ma isku taqaanaa? waa caadi dadku waxay dhahaan qarax buute laakiin cuntada cunaa. waa tahay aqbalyo
aad iyo aad ugu faraxsanahay hambalyo waana kula wadaagayaa inta kuu codaysay iyo bacda saxaafadda waa kugu dhiirigelinayaa runtii kartidaadana waa soo dhaweynaa halkaana kasii wada dadaalkaaga waxaan rajaynaynaa sanadaha dambe inaan kugu qabsan doonno awaadka laftirkeen aad u maasan waa tacaala aad u mahadsan yahay yaa noogu xiga